السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن wanaagsan saaxiibayaal meel walba joogtaan waa salaamantiin caafimaad qab iyo nabad baa idin rajeynaya habeen wanaagsan maalin wanaagsan xilli walba nit hay wanaagsan oo wacan rabadaan kariim oo hordhacan idin leeyahay waqtigan aan codka duubayo waxay naga xiga habeen dambe oo sabti ah ninkii ilaahay gaarsiiyo sida loo badan yahay waa ramadaan waxaan kaloo idinku bishaaranayaa jimcaha barakaysan ee caawa oo ah jimcii noogu dambeeyey inaan wax cunno inoogu dambeynayso cuntada caadiga waan cunaynaa laakiin macnaha waxaan uga jeedaa jimcii noogu dambeeyey rabadaan aan ahayn wey intaas ka bacdii waqtiga anoo inooga faa'iideynaya waxaan caawa ka hadlayaa 4 qodob oo muhiim ah qof kasta oo muslima siiba dhalinyarada waxaa muhiim ah inaad ilaaliso 4 shay ilaali 4 shay haddaad ilaashato barwaaqo iyo horumar iyo guul baad gaadhaysa haddaad 4 shay ilaalin weydo oo dayacdo oo faraha ka qaadana oo 4 shay ihtimaam iska saari weydana xaqiiqatan waa khasaaraysa qodobka ugu horeeya waxa weeye xiriirka ilaahay ilaali diintaada ilaasho islaamnimadaada ilaali ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyada ku keenay waa inaad xiriirka kaala dhexeeya wanaajistaa wuxuu waajibaad ku saaray aad ka soo baxdaa wuxuu ku diidaa iskaga tagtaa inaad xaalad walba ku jirto ilaahay ku xidhnaato inaad ilaahay ku tiirsanaato wax walba adduunyada cid walba hadaad ku tiirsato maalin bay garabkaada ka baxaysa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa allahu samad oo mabaaxdaha loo baahan yahay isaga xaalad walbad ku jirto kuu nicmaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala bal iska daaye baryadu ilaahay kugu sii jeclaanaya halka bini'aadanku bilcagsi ay baryada faraha badan kugu nacayaan oo bini'aadanku mar walbood barido wejiga ay ku hayaan iyo ixtiraam ay ku hayaan uu yaraanaya ilaahina bilcagsi mar walbood barido ixtiraamka iyo jacaylka ku jeclaanayo ilaahay wuu sii badanaya marka xidhiidhka ilaahay wanaaji oo bointiga ugu horeeya ka dhig noloshaada aroortii markay bilaamayso ha ku bilaabato xidhiidhka ilaahay waleylkii salaatu subax wanaag khayrkaa ku bilaabanto haddaad noloshaada buddhig iyo mixwar iyo odobadhexaad uga dhigto inaad xidhiidhka ilaahay wanaajiso wax walba oo khayr iyo baraka waad helaysa hawl walbada faruuqaad ilaahay ku fududaynaya waa ilaahayba macaga ah qof ilaahay maciis yahay cid kale hoojin kartaa ma jirto qodobka labaad waxa weeye inaad ilaaliso caafimaadkaaga caafimaadka ilaahay ku siiyey waa nicmo qaaliya oo aadan maanta dareemeynin oo qofka xanuunsanaya uu dareemayo waa shay aad iyo aad u qaaliya waxa garanaya qofka xanuunsan qofka waayey qofka maanta caafimaad darro dareemaya ayaa qiimaha caafimaadka garanaya caafimaadkan ilaahay ku siiyey waa nicmo jaanis ilaahay ku siiyey subxaanahu wa tacaala indhahaaga u caafimaad qaba gacmahaaga u caafimaad qaba meel walba ood mari karto wax walba ood qaban karto waa nicmo aad iyo aad u qaaliya maxaa markaa loo baahan inaad ilaaliso caafimaadka waxyaaba dhibayaa jira oo dhibaato u keenaya cuntooyinka iska ilaali caafimaad darrada keenaya iska ilaali fadhiga faraha badan markaad qof dhalinyaro ah tahay jimicsi badan samee jirkaagu waa inuu shaqeeyo waa inuu kala baxo waa inaad caafimaadkaaga ka warhaysa tusaale ahaan biyo badan cabto ceeb maaha inaad naftaada dar yeeshaay waayo maxaa la yidhi القلب الصافي القلب الصحيح في الجسم الصحيح بلد القلب الصحيح في الجسم الصحيح قلبك عافمad qaba iyo maskaxda shaqeynaysa waxay ku dhex jirtaa jirka caafimaad qaba shaqeynay dad fadhiisato oo macaan qaato oo caloosha inta ku leekaato oo macaan ku dhaco oo dhiikar oo adoo dhalinyaro ah dubba aad ay gaboodo waxa kale oo iska ilaalisaa bilwada rag iyo dumar ka fogow bilwada waa baabi'iyaha bini'aadanka wey waa baabi'iyaha dhalinyarada maanta dhalinyaradeenii god weyn bay ku dhaceen aanin ka soo bixi karin ilaahay ka soo saareen
maanta inanka dhalinyarada ah ee 12 jir buurood ku bilaabaayay mustaqbalka laga sugayaa muxuu yahay bilaahi calaykum ilaah baad ku dhaariyey marka dhalinyaro iyo dhammaan bulshada qaybeeda kala duwan waxaa looga baahan yahay inaan iska ilaalino balwadaha waxaa kaloo iska ilaalisaa inaad saamaliil samayso amba habeenkii soo jeedo dhafarka waxaa la dhahdo caafimaadkaaga wuxuu dhameeya way ugu horsa maskaxdaadu maskaxda ilaahay subxana wa taala ku tagay inaad nasato si ay shaqo fiican u qabato fahamkaaga ayaa hoos dhacaya subuuq baa kugu bilaabmaya ikti'aab iyo murugo stress marka dambe waalanba haddii qofku hurdo waayo xanuunba kama baxaba caajis baa kugu dhici faqri baad ka qaadi waayo ilaahay subxaana wa tacaala habeenkii wuxuu ugu talagaa in la seexdo la nasto si beri iyo maalinka dambe dheer loo shaqaysto laakiin haddaad bilcagsi ka dhigto ood habeenkii oo dhan soo jeedo raaroo dhan dee ma shaqaysan karaysid caafimaadkaaga sax ma ahaanayo qof waxaad ahaanaysa wax ka khaldan yihiin haddaad arrintaa ku celcelisana naftu way baranaysaa naftu waxay baranaya inay habeenka soo jeedo naftu waxay baranaya inay dibdhac ku socoto naftu waxay baranaya inay ismasaxdo oy dib u socoto reefas baad ku jiri halka ummadda kale horumar ay ku socoto wargaaladii baa fahantay maanta in hore loo seexda in faa'iido ku jirto oo aroortii la kalaho qofka soo jeeda habeenkii kow cibaadadii ilaahay iyo horta seegaya subaxii meesha ka baxaya wuxuu seegayaa inuu xilli fiican shaqo tago wuxuu seegayaa xilliga arsaaqada la furo ee kalahaadda iyo aroorta hore inuu qofkaasi shaqo tago hadduu shaqaale yahay shaqadiisa ayay saameyn ku yeelanaysa hadduu qof mulkiilaa yahay ganacsigiisa weliisa ma wadi karo hadduu arday yahay waxbarashadiisa meesha ka baxaysa markaad dhalinyaro tahay iyo qof walba weli markaad dhalinyaro tahay si gaara iska ilaali saamaliilka noloshaada dhaawaca u geysto iska sheekayn doonta qodobka kale ee saddexaad waxaa weeye war waktigaada ilaasho waktigaaga ilaali waktigu waxaan aan ka samaysannahay hadalkaa markaan hadlayaay iyo dhaqdhaqaaqa aan samaynayaay iyo waxaan igu xiran waa wakti shalay wakti bay ahayd way tagtay ma soo laabanayso maanta waa xaadir saacad ka hor wakti tegey bay maadii bay xisaabsan tahay waxaa loo baahan yahay waktigeena inaan nidaamsanno oon 3 shay u qaybinno wakti aynu cibaadaysanayno ilaahay subxaana wa tacaala la xiriirayno oon ilaahay baryayno oon munaajaad ku jirno oon quraan akhrisanayno oon ilaahay xusayno subxaana wa tacaala oon nebigeena ku sallayno salawaatu ullahi wasalaamu calayhi aynu cibaadaysanayno oo xidhiirka allihii adduunkayna keenay wuxuu inoo abuuray aynu ka shaqaynayno oo cibaado ah wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun billahi subxana wa tacaala iyo marka labaad oo ah wakti aynu nasanayno naftu nasimay u baahan tahay hal shay hal rotiin naftu hadday lagu cadaadiyo inta badan cadaadiska waxa ka dhaca naftu inay orod baxsataba ood hadhow ku kari weydo marka nafis yar kolba break time bay u baahan tahay markaa nasasho waqti aad nasanayso amba xilligaas seexanaysa ha noqoto oo hurdadii habeenkii 8 saacadood meelaas ha noqoto amba xilliyo kale ood iska nasanayso ood waxyaabaha jecesha iska qabsanaysa ha noqoto naftu xataa inay yara ciyaarto inay soo yar farxdo soo yar jimc way baahan tahay naftu iyo waqtiga saddexaad oo ah inaad waqti aad wax baranayso war adduunka maanta qofka aan waxba siyaadsani wuxuu ku noolaa nolol laga tegey si xawli adduunku u socdaa maanta maalin walba cusub baa soo kordhay haddaad adigu 2000 amba 2015 ama 2020 halkii la mariyey iyo aqoontii aad lahayd ay kugu joogto waa laga tegey martibaad ka ahaanaysa wax adduunyada ka socda marka waa inaad wax siyaasato ood wax barato ood aqoontaada weliba ilaahay ku baraysa aakhiradaada ku hagaajinaysa dee inaad barato oo waajib weeye cilmiga cilmulxaalka ay soo noqonayo waa inaad barataa qodobkan kusoo gabagabeynaya waxa weeye ee u dambeeyey war waxyaabaha gaarka ku ah ee khusuusiyaadka dadka ilaasho waxyaaba dadka looga warramo iyo wax aan laga warramin baa jirta
siraha ku goonida ah waana ilaashato. haddii maanta ay baahi ku hayso oo aad bestee tahay oo bisaaradii digta kaa dhigtay bini'aadanku waa inaanad u muujin. waayo bini'aadanku aad buu u xun yahay. waxaa dhici karta in yaroo loo naxariista mooyaane waxaa dhici karta in laguguba dacaadeeyo kii faqiirkii kii baahanaa war waxaan baryada badan leh waxaan baahanaa miskiinka lagu dhaha. adiguna marka xaaladdaa aad ka hadlaysay ha laguu micinaad rajaynaysay iska daa micinidee dhibaatadii ku haysatay baa dhib lagugu daraya aflagaada ah. ilaahay baa wax loo sheegta. wax kaloo muhiima sidaa cagsigeeda arrimahaaga muhiimka hadduu ilaah nimcooyin ku siiyo inaad dadka qaarkood uga sheekin. qof aad is leedahay taluu ku siinayaa is leedahay mooyaane inaana dadka adoo faanaya dadka aan uga sheekin. maxaa dhimanaya maxaa keenaya maxaa dhacaya laba shay bas way dhacaysaa. in xaasidnimo meesha ka bilaabanto oo qof qalbigiisu bukaayay oo dheefta aad heshay iyo guusha aad gaadhay kugu calolxumo qaado. ilaan xasadku waa shay aad u xun waa nicmo qofka ilaahay siiyey inaad jeclaatin laga qaado. markaa nimcada ilaahay ku siiyey in lagugu celadiyaa dhici oo lagugu dhibaateeyo oo aad xataa laguguba dila dhici kartaba. marka afkaaga iska hayso waxbaha ka sheekin wix ilaahay ku siiyey qarso waxaad ummadda qaban karta u qabo bis. hadduu ilaahay hanti ku siiyey intaasuu lacag haystaa intaasuu guribaa ay dhisan baabuurra ay shaqeeye magaasaanaan leeyahay beeraalka igu uga sheekin dadka maxaa ma soo kordhinayso alla waxay faa'iido leedahay kan kalena waxba ma soo kordhinayso adna waxba kuma soo kordhinayso. waxaa dhaami lahayd qofka inaad wax siiso bis iskaga aamusanta. haddaan dadka wax u qabanayna dadka ku wareerin adigana dhib bay ku keeni. waxyaabaha muhiimka wax ka mid ah khusuusiyaadka aad leedahay ee gaarka ah arrimo gooniyaa jira oo ay waajibta inaad qariso oo xataa naftaada ka qariso. meelo aad ku liidataa jirta waxyaabaad ku xuntahay jirta dabciga liidateed leedahay dadka uga sheekayn oo lagugu dhibaatay oo lagugu caayay. waxaa kaloo jirta soomaalida ku maahmaahda ninna mishaarkiisa lama weydiiyo nagna da'deeda lama weydiiyo. tusaale haddii ilaahay dhaqaale fiican ku siiyo oo ilaahay mishaar fiican bisha ku soo galaayo amba waxa caynkaad helayso dee waa inaad ilaashato dadka uga sheekin. guud ahaan muuqaalku intaasuu muskaga ekaan doonaa. wuxuun baan islahaa asxaabtaada la wadaag wixii aqoon iswadaarsi aad ku dhaanto isxasuusin un bay ahayd aqoon maahin. marka dhammaantiin khayr baa idin rajaynayaa. ilaahay noo fududeeyo nin walba wuxuu ku haminayo inuu rumeeyo. intaan muuqaalka ku kulmi doono waxaan idin leeyahay ramadaan kariim jumca mubaarak wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaan aad iyo aad uga cudur daaranayaa oo aan uga xumahay in codka wax ka khaldanaayeen muuqaalkuna xilligii loo baahnaa uuna soo gelin oo aan dib ugu soo geliyey. marka waad ka raali ahaanaysaan saaxiibayaal cillad farsamo darteed ayay arrintaas dib uga dhacday. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan muuqaallo kaloo xiisan waan isoo wadaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.